injineer Cabdullaahi Cali Xasan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda codka kalsoonida lagala noqday ayaa si weyn loo hadal hayaa inuu noqdo shakhsiga madaxweyne Farmaajo u xulan doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. warar lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in shakhsiyaadka ugu cadcad ee la hadal hayo uu koow ka yahay injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo muddo sanad ah hayay xilkii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. muddadaasi oo uu wasiirku ahaa injineerka ayaa waxa uu qabtay howlo aad u fara badan oo lagu horumarinayay dhinacyada shuruucda ganacsiga, siyaasadda iyo dadaalada lagu horumarinayo ganacsiga, maalgashiga iyo warshadeynta Soomaaliya. sidoo kale injineer Cabdullaahi ayaa waxa uu muddadii xilkaasi hayay waxay wasaaraddu ku guuleysatay inay hirgeliso hindiso sharciyeedyo wasaaraddu ay leedahay. dadaaladaasi ayay wasaaradda ganacsiga dhinac walba ka samaysay horumar dhan walba leh. injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada waxgalka ah ee wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991 u istaagay dhinacyada horumarinta bulshada rayidka oo adeegidda shacabka Soomaaliyeed oo ay aafeeyeen dagaalada sokeeye, dowlad la'aanta, fatahaadaha, abaaraha iyo gaajada soo laalaabatay, isagoo ku howlanaa u gargaaridda bini'aadanka iyo samata bixinta bulshada dhibaataysan 30 sano ee lasoo dhaafay. injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho, isagoo waxbarashadiisii aasaasiga ahayd ee ku soo qaatay isla magaalada Muqdisho. jaamacadda ummadda ayuu shahaadada koowaad ee cilmiga dhismaha injineeriyadda ka qaatay. sidoo kale waxa uu ka qalin jibiyay jaamacadda State University of New York ee Sunny Albany. wuxuu shahaadada masterka ka haystaa maamulka iyo ganacsiga, isagoo macallin ka soo noqday jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed oo ay isaga iyo aabihiis Allah u naxariistay Professor Cali Xasan ay macallimiin ka wada noqdeen. laga soo bilaabo sanadkii 1990 waxa uu ku howlanaa u gargaaridda dadka Soomaaliyeed oo ay dagaalada iyo abaaraha saameeyeen. waxa uu soo noqday agaasimaha hay'adda waxbarashada iyo horumarinta CED oo ah hay'ad maxalli ah oo ka shaqeysa arrimaha gargaarka bini'aadanimada. wuxuu horay u ahaa madaxii barnaamijyada iyo mashaariicda, isla markaana ah xubin ka mid ah maamulka sare ee hay'adda DBG sanadkii 1996. muddadii aadka u fogeed waxa uu ku lug lahaa arrimaha samafalka iyo gargaarka bini'aadanimada. injineer Cabdullaahi Cali Xasan waxa uu wax la taaban karo ka qabtay shacab fara badan oo Soomaaliyeed oo aad u liita, kuwaasi oo u badnaa haween, caruur iyo dad ah. injineer Cabdullaahi ayaa lagu yaqaan in uu yahay hogaamiye nadiif ah oo la iman kara isbeddel muuqda iyo horumar hawsha loo igmaday. waa aqoon-yahan qunyur socod ah, dalkana meel u bixin kara, howlkar ah, go'aan qaadasho leh oo ballamaha ku fiican. dadka yaqaan aqoon-yahankan ayaa ku sifeeyey inuu yahay shakhsi isku darsaday diin jacayl, wadaninimo, daacadnimo, hoggaan suuban, aqoon iyo howlkarnimo. waxyaabaha lagu soo xushana ay u badan yihiin taasi. waa shakhsi waayo arag ah, bisayl siyaasadeed iyo mid aqooneed intaba u leh maamulka iyo hoggaaminta, isla markaana isku darsaday khibrad maamul iyo mid hoggaamiyenimo oo waqti dheer ah. injineer Cabdullaahi oo ka mid ahaa musharaxiintii madaxweynenimo ee sanadkii 2017 ayaa ah aqoon-yahan khibrad siyaasadeed leh, waxaana laga filan karaa inuu bulshada ku hoggaamiyo cadaalad, sinaan bulshada dhexdeeda ah iyo inuu dalka ka samata bixiyo marxaladaha adag ee xilligan taagan, maadaama uu yahay waayo arag wax badan ka og xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo inuu maarayn doono hannaanka dowladnimo iyo xiriirka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe.